Hello ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Bal marka qaarkood marka video duubto kadibna aad hadhow tole edit garayso ayuun baad aragtaa cilad ah in codkii microphone-kaaga video-gaagu uu yahay one side kaliya ama dhig kaliya. Ciladan inta badan waxa keena microphone-kaaga ayaa wuxuu ka kooban yahay codkiisu ama wasa video-gaaga codkiisu wuxuu ka kooban yahay left iyo right. Marka labada midkood ayaa inactive ah. Marka waxa jira effect ku sahlaya dhinacii inactive-ka ah markaad ku dul shubto effect-ga video-gaaga aad dul soo dul dhigto in uu dhinacii inactive-ka active noqdo. Dabeedna labada dhinacba codkaaga loo maqli karo. Badankana qofku wuxuu ku fahmi karaa video-giisu inuu labadiisa dhinacba codkiisu uu shaqeynayo ama bas inuu one side yahay. Haddii speakers fiican isticmaali karto ama headphones ka shanta baad si fiican u maqli kartaa inuu one side yahay inuu two side yahay labadaba. Ciladana sida looga saaro wasiiro fudud marka taas rabaa maanta inaan kula wadaago adigoo isticmaalaya Adobe Premiere Pro. Let's go. Waxaad tagi doontaa Premiere Pro-ga dhexdiisa kadib markaad video-gaaga soo import garayso ama timeline-kaaga soo dhigto waxaad tagi doontaa khaanada loo yaqaano effect panel-ka ama effects-ka. Kadib markaad effects-ka tagto waxaad ku qori doontaa fill effect. Markaad ku qorto kadib wuxuu kuu soo saari doonaa laba option, labada option ka hoose ayaad soo qaadan doontaa. Kadib drag and drop baad ku soo siin doontaa intaad soo jiido timeline-kaaga ama video-gaaga bartii timeline-ka yaali baad ku dul shubi doontaa. Kadibna sidaas ayuu codkaaga ku noqon doonaa mid aad ka maqli karto labada dhinac ama two sides ah. More tricks and tips hadda doonaysa inaad barato editing-ka khuseeya fadlan isoo follow garee sidoo kale video-gana saxaabtaada sii share garee oo address-ka usii taabo. Ta ugu muhiimsan in ku xasuusinayaan waxa weeyaan inaad YouTube channel-kayga igu soo booqato halkaas aad ka heli doonto video fara badan oo khuseeya filmmaking-ka, editing-ka iyo tutorials noocaas oo kale. aad baan idin salaamaya.